dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana hambaliyo iyo bogaadin u diray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada ku sugan jiida hore ee Soomaaliland iyo ku hambaliyay duulaankii ay daraad ciidamadu ku qabsadeen magaalada Taleex ee gobolka Sool. Dadweynahan ayaa ducay amaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hawada u mariyay iyo ku amaanay hawlahooda shaqo iyo sida ay ciidanku u gudanayaan waajibaadkoodii. Waa kuwan dadweynahaasi iyagoo ka hadlaya hambaliyinta iyo gubaabinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyeynaya oo hambaliyo bogaadin u diraya ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland especially ciidanka aaga bari hawlaha ay halka ka wadaan haday gobol tahay iyo haday degmo tahayba waxaanay kamid tahay yaani wadanka intiisa kale sida ay u degan yihiin wadanka intiisa kale amba gobol kasta ay u degan yihiin ayaa gobolada barigana iyagana saasleeg waa ciidan wadanka gudihiisa jooga laakiin hawlo ka qabanaya hore u dayacnaa oo aan hore ciidanka magranayay hawlgal loogu dirin halka marka aad iyo aad baan u hambalyeynaya aad iyo aad oo la soo koobi karin baan u hambalyeynaya halkan ka hambalyeynaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah ciidan awood leh oo markasta u heegan ilaalinta xuduudaha dalkeena waxaanay dhirbaaxa kulul ku dhuftaan cadawgeena ku soo xadgudba xuduudaha Soomaaliland runtii aad baan ciidamada u hambalyeynaya hawlaha geesinimada leh ee ay qaadeen hambalyeynaya ciidanka qaranka ila jiida hore jooga aad ayaan ugu hambalyeynaya inay ku guuleystaan wax allaala wixii shaqo ay ka qabanayaan halka inay horumar iyo guulo ka keenaan aad baan ugu hambalyeynaya كل هاوش أي جلين إذا ما ذكرناكم وحول عرس إنه أنا كفر حسني رنتي هذين هاي سومالي إن سومالي دو أي تهاي نقطة فارس كهوري ما أو هذين رنتي أي تهاي سياسة جارة إن بالشدة سوماليين الإسكار كنا هذا نوع حلنا هي قالوا ولا هو حلنا ده حلو اللي إسكو حد جدنا ما في أنا لكن حلها هذا وهم بلينا إذا ما ذكرناك إن يقول كسر هويان hawlahooda qaran ee ay hayeen ee xambaarsanayeen halkan waxaan hambaliyo buuxda ugu soo jeedinaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabadii fiicnayd ee ay qaadeen markii ay baaxa kulul ay ku dhufteen kuwii Taleex laga kiciyay waxaan leeyahay ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland hawaaraan ana xoogeystaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee daraad qabsaday magaalada Taleex ayaa shalay duurkii dib ugu soo laabtay fadhiisinadoodii Xudun iyo Laascaanood ay markii hore ka duuleen iyagoo si nabad ah ku soo dhameystay hawlgal ay kaga siifeynayeen maleeshiyadii isku urursanaysay deegaankaasi waxaana duulaankan ay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qabsadeen magaalada Taleex sida fiinta uga qayliyay kooxaha nabadiidka ee Khaatumo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Xarid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera.